wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo ay wehelisay agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka Marwad Deeqa Cabdi Yuusuf iyo mas'uuliyiinta wasaaraddaasi ayaa ku qaabilay xarunta wasaaradda wafdi ka socda saaxiibada Somaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka iyo daneeyayaasha dimuqraadiyadda wafdiga ka socda beesha caalamka ayaa isugu jiray wufuud ka kala socday midowga Yurub iyo UK wafdiga beesha caalamka iyo wasaaradda dastuurka ayaa isla lafaguray horumarinta shuruucda doorashooyinka dimuqraadiyadda fahanka wadaniyadda iyo muhiimadda doorashooyinka iyo wadaniyaddu ay u leeyihiin guud ahaan bulshada Somaliland kulankaasi markuu soo ilaaday amaba soo dhamaadayna waxa warfidiyeenada la hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland isla markaasina sharaxaad ka bixiyay waxa uu daarnaa kulankaasi ay la yeesheen wafdigaasi maanta ay taariikhdu tahay 24 bishii labaad 2021 waxa xarunta wasaaradda runtii ku yeeshay kulan wafdi ballaaran oo ka socday waxa ayna kala ahaayeen sida UK, Sweden, Norway, Denmark, Germany, Finland iyo wadanka UK oo iminka ay ogtiin inuu Yurubiyaanka isagu maxaa dhahay runtii kama madax banaanaaday ay yihiin waxa weeyaan wadamo ka shaqeeya democratization-ka Somaliland doorka ay ku leedahay doorashooyinka iyo democratization-kana runtii horena xiriir nooga lahaa maantana inay xoojiyaan inoogu yimi ayaanu maxaa dhahay kulan halkan ku yeelanay taasoo runtii aanu aad ugu lafaguray sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen hawsha aynu wado iyo wasaaraddu si gaar ah u wado oo lagu lafaguray horumarinta shuruucda doorashooyinka dimuqraadiyadda fahanka wadaniyadda iyo muhiimadda doorashada iyo wadaniyaddu ay leedahay taasoo runtii waxa weeyaan aan si wanaagsan oo mug leh uga wada hadalay waxaan kale oo runtii iyadana ka wada hadalay wax badanna ay naga weydiiyeen barnaamij aan filayo badankiinu inaad la socotaan oo la yidhaaho xilkas kaasoo muujinaya shuruucda dimuqraadiyadda doorashooyinka wadaniyadda oo wasaaraddu ay ugu tala gashay in muwaadiniintu ay aad u fahmaan waxa weeyaan doorashooyinka iyo waxa weeyaan iyo shuruucda doorashooyinka taasoo aan ugu tala galnay meel dhow iyo meel dheerba inay gaadho magaalooyinka waaweyn miyiga tuulooyinka degmooyinka inagoo isticmaalayna dhammaanba wasaa'ilka wax lagu gaadhsiiyo bini aadanka si runtii looga baaqdo wax badan muranno iyo waxa weeyaan in ciddii xaqa u leh iyo ciddii maxaan idhaahaye siday u dooran lahaayeen qof munaasib ku ah buuxinaya shuruudaha isaguna uu waxa weeyaan u garto waajibaadkiisa iyo qofka uu yahay barnaamijkaas oo aan filayo inaa aad iyo aad ula socon doontaan aana ku dhiiri gelinayo bulshooyinka Somaliland ee ku jirta doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka inay aad iyo aad ula socdaan runtii waxa nasiib wanaaga inaanu isla fahanay inay muhiim tahay hawsha ay wasaaraddu wado qorshana ay ka tahay baarlamaanka soo socda golo wakiil iyo mid deegaan labadaba in la siiyo tababaro ku filan waajibaadkooda si hufan sidii ay u gudan lahaayeen dhiirigelinta bulshada dhammaan dhalinyarada iyo haweenka iyo sidii wadaniyaddu ay hana qaadi lahayd ee ay mustaqbalka u noqon lahaayeen bulshada Somaliland ee da'da yari mid fahansan dastuurkooda iyo shuruucda ka farcamaysa ayna ku talaalan tahay oo ku beeran tahay wadaniyaddu oo ay u arki lahaayeen ama ay tahay inay u arkaan wadankan inuu yahay wadankii iyagu ay lahaayeen oo ay dareemaan lahaansho yeelasho xuquuqeed oo ay dalkan leeyihiin sida darteedna ay uga difaacaan wax kasta oo xumaan ah oo waxa weeyaan ku iman kara taasoo ay tahay inaynu ku talaalno daayirtiin
wafdigani la kulmay wasaaradda dastuurka ayaa maalmihii u dambeeyay si joogto ah ula kulmayay xisbiyada siyaasadda ee ka jira Somaliland. Ciidaruus Maxamed Caynaan, Goobjoog, gudaha magaalada Hargeysa.